Cabdirasaaq Salaad Diirsha ayaa la yiraahdaa. Somaliya ayaan ku dhashay gaar ahaan gobolka Mudug, degmada Bandiirley. Somaliya anoo yar ayaan ka soo baxay, ayaan qurbaha soo galay waxbarashadeydii dugsi sare iyo maxaan ku irahday iyo jaamacadba waxaan ku qaatay dalka Sweden oo imika degaankayga ah. Anoo kubadda ayaan ciyaari jiray kabacdi markaa dadku dee half time-ka markii la qaato dadku way daali jireen, waa maaragtay waa la nasan jiray, waa la istaagi jiray, biyo la cabi jiray, laakiin anigu waan iska sii wadi jiray, waan iska sii roordi jiray. Marka reer aan maxaan ku irahday aan la deganaa oo dee Swedish ayaa odagu yiri ninkan maaragtay aan daalin waaxay ninkan inaan orodada u raadino weeyo club orodada inaan geyno weeye. Marka ay la xiriireen club waxay la xiriireen ciyaaraha fudud ay la xiriireen sida ayaan orodada ku walaal horta waxa weeye dee wax anigu way aragnimo iyo aqoon toona kamaan haysan, laakiin markaan wixii dhex galay oo maaragtay aan arkay wax badan baa iga faa'iiday ayaan maaragtay ka faa'iiday. Tartankaygii ugu horreeyay waan xasuustaa wuxuu ahaa 95kii winterkii 95kii ayuu ahaa xilliga maxaa la xagaamiya la yiraahdaa winterka. wuxuu ahaa weliba guri hoosta ayaa lagu ordayay waayo maadaama dee barafku aad u badan yahay wadamada xilliga qaboobaha bannaan laguma tababaran karo, laguma tartana laguma geli karo. Marka dee aniga waxay la ahayd wax cajiib ayay la ahayd. Kaba nooc kale ayaa lagu ordayaa, dhar nooc kale ayaa lagu ordayaa, maxaan ku irahday wareeg yaroo dee cabir la sameeyey ayaa lagu ordayaa. De marka waxay la ahayd wax aanan hore u samayn ama aan hore u arag ayay la ahayd. Sidaas oo ay tahay tartankaygii ugu horreeyay waan badiyey alxamdulillah. halkaa ayaan maaragtay dhiirigelin baan ka helay oo dee maxaan ku irahday waxay noqotay meeshii waddada ay xaaraysay. ciyaaraha waxaan ku bilaabay 800 ayaan ku bilaabay. 800 maanta markii la isku geeyo inta jeer ee horyaalka Sweden badiyay 24 jeer ayaan badiyay. 24 bilood dahab ayaan qaaday horyaalka Sweden. ciyaaraha caalamigana ciyaar aanan ordin hadday noqoto kuwa adduunka iyo kuwa Europeanka ma jirto. waxaa kaloo jira ciyaaraha Scandinavianka ay leeyihiin. ciyaarahaas waxaan malaynayaa 6 hadda xasuustayda 6 goor waan badiyay. taa waxay dheer rekoorka Swedishka ee 800 ayaan jabiyay ilaa iminka yaala. waxaan malaynayaa waa sanadkii 13 ayuu ku socdaa. 2003 ayaan jabiyay wadanka Jarmalka ayaan ku jabiyay. iminkana ciidamada Jeen wuu yaalaa. horta Swedish champion ama horyaalka Sweden ayaa waxaan badiyay 1997 markii ugu horeysay. sanad kadib 1998kii isla sanadka 1997 ayaan qaran ka saftay Sweden. 1998kii waxaa dhacay ciyaaraha horyaalka Yurub wuxuu ka dhacay waddan la yiraahdo Hungary ayuu ka dhacay. ka ayaan ka qayb galay oo dee horyaalkii ugu horreeyay ee caalamiga aan ka qayb galay ayuu ahaa. markaana dee wax badan ayaa maaragtay ayaan ka faa'iiday oo qofku waxa weeye markuu ciyaaraha ku cusub yahay wuxuu u baahan yahay way aragnimo badan inuu dee qaato intuunan tallaabo hore u qaadan. marka ciyaarahan wax badan baan ka faa'iiday oo ciyaarihii caalamiga ugu horreeyay aan ka qayb galay ayaa Israa'iilkii waan badiyay. finalkii semifinalka ayaan ku haray waayo waxaa joogay dee beriga rag adduunka oo haysta oo maaragtay nin Jarmal oo noqday Olympic champion ahaa, nin Kenyan oo Denmark u ordayay world record holder ahaa, rekoorka adduunka haystay. marka Yurub dee markii 800 laga hadlayo anigu waxaan ordayay 800 mitir ayay ahayd. marka dee waxay ba ahayd Olympic final oo kale ayay ahayd waayo raggii Olympiga iyo world championka biladaha guranayay ayaa iskugu yihiin. markaas way maaragtay hawshu caadi ma ahayn. maaragtay nin cusub oo ciyaaraha ku cusubay marka inuu is soo taagaba cajiib ayay ahayd. marka aniga waxaaba faa'iido bay ahayd way aragnimadan ka faa'iiday iyo isreereebkii aan gudbay
تايا فيديا ترتن كا waxa la yiraahdaa European Cup League ayaa la yiraahdaa waxa ka dhacay dalka Sweden wuxuu dhacay 2002 ayuu dhacay أول واحد نورد جري دي كون سداد بقول بايا نورد جري لكن أردك قرنك واحد لا ما قصبين لكن واحد يجري كوني شنت بقول ورد سدا أيانا كوبدي كوني شنت بقول يوروبيان كاب كوني شنت بقول أم بدي هريال كسويدن أفريقيا الوطن جرام بدي عيارها الدنك أو أن كقرب جلاي أو قارد أن محكو راداي أن فاينال جاري قار أن سام فاينال كحري iyo rekoorka Swedishka aan jabiyay ilaa imika yaala iyo ciyaaraha Scandinavian ka Scandinavian 4 sano oo maaragtay isku xigta ayaan horyaalka Scandinavian-ka oo wadamada Scandinavian-ka la yiraahdo waxa weeyaan waa Denmark waa Sweden waa Iceland waa Norway wadamada oo dhan ayaan horyaalka hogaaminayay muddo 4 sano Olympic كمان قيب قليل لكن qualification كي واحد ترى وقت بالوقت تجاه يراها Olympic أما World Champion أما European كا time كي وان سمية لكن واحد ترى سويدش كو واحد اللي دولة Olympic قبل سنة قرادي Olympic سويدش كا واحد سمايستين وقت أيوه إسكالي واحد يرى وقت يجا نينك تبيني تمتجي Olympic marka kaligay tahay uma dhicin rag dad badan bay ku dhacday rag iyo dumarba oo sameeyay waqtigii saacadii international-ka ah marka sida ayaan 2004 kaga haray oo maaragtay la ii diiday inaan ka qayb galo arintaas xamaasad badan iyo wax badan bay dhalisay waxayna ku qasaftay qoladii Swedish Olympic Committee inay bedelaan shuruucdoodii oo waxa way kulay tani maanta waxbay tareemayso waqtigaan ولا يجوه رستاجي الروحي وحن كل احترايا فهم كرايا وحن ويا شقة بدن ويجي وشقة فول تايم أي كدران تاي وحوي كمان بتجيسا وحن لح برد الله تكون رانا يسمى كينيا من ساوث أفريقيا أما أمريكان كايات كام كتير تايو مالك استلبات رياض مالك تتبر أيات سمين يسا مركا وحن وحوي مركا هير the international تمادو waxaad markaa nasiibkaagu u xogsiyo ayaa leedahay ninka bilada dahabka qaadayo iyo adigu wax ma isma dheeridin laakiin maalinka ayaad wax isdheerteen garoonka lagu wada jiro nina nasiibkiisu waxba ma siinayo nina uu siinayaa marka waxa weeyaan nasiibkayga dadka wax la qaybsan lahaa nimanka ayaa maaragtay hor istaagay kaligay uma dhicin sidan riba laakiin niyad waxay niyad tabi waxay keentay maxaan ku yiraahday iyo maxaan ku yiraahday iyo wax aan ciil kaambis Shangula